asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada. Madaxweyne Trump ayaa laga helay cudur dhinaca xididada gala. Haddaba cudurkaasi muxuu yahay? Ma mid khatar ahaa? Madaxweynahana xanuun miyuu ku hayaa? Arrintan sida ay ku dhalatay waxay tahay maalmihii u dambeeyey ayaa warbaahintu waxa ay wadeen sawirro madaxweynaha oo la arkay in gacmihiisa gaar ahaan gacantiisa midig in ay xogaa bararan tahay kadibna make up lagu qariyey, iyadoo sidoo kalena axaddii lasoo dhaafay markii uu gobolka New Jersey uga qayb galayay ciyaartii kama dambaystahayd ee koobka naadiyada adduunka ee Club World Cup oo Chelsea iyo PSG ay wada ciyaarayeen, isaga oo la fadhiya xaaskiisa Melania iyo sidoo kalena madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, in la arkay lugihiisa gaar ahaan qaybta anqawyada oo bararsan. Arrintaasi warbaahintu marka madaxweynaha ma xanuunsan yahay, sidee wax u jiraan ayaa la hadalhayay. Haddaba afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa maanta shirkeedii jaraa'id ee maalinlaha ahaa waxa ay ka akhrisay waraaq uu soo qoray dhakhtarka madaxweyne Donald Trump. Marka waxa ay ku caddaysay in maadaama warbaahintu ay sawiradaasi maalmihii u dambeeyey ay wareejinayeen madaxweynaha oo gacantiisu ay bararsan tahay, meegab lagu qariyey, lugihiisa oo bararsan, in dhakhtarka madaxweynuhu kadib markii baaritaano badan lagu sameeyey in laga helay cudur dhinaca xididada dhiigga isku gudbinta gaar ahaan qaybta lugaha, in dhiigga uusan u gudbaynin, la yiraahdo chronic venous insufficiency. waxaana la leeyahay waa cudur ku dhaca dadka markay da'doodu gaarto 70 sano iyo weliba wixii ka weyn. isla markaana madaxweynaha khatar kuma ahan, baaritaano kale oo lagu sameeyana laguma arkin ayay tiri afhayeenka aqalka cad in wax wadna xanuuna uu qabo ama cudurro kale uu qabo. caafimaadkiisu aad ayuu u fiican yahay. bararkana waxaa keenay ayay tiri aspirin uu isticmaalayo madaxweynaha. sidaasi darteed waxa ay sheegtay maadaama warbaahintu ay arrimahan si aada u hadalhayeen ayaa dhakhtarka madaxweynuhu waraaqdan inaan idinla wadaago ayuu u soo qoray. madaxweynuhuna amarkaasi waa uu siiyey inaan idinla wadaago. waxaan ognahay Republikaanka madaxweyne Biden intuu madaxweynaha inay dhahayeen waa 80 jir, aad ayuu u da'wan yahay. Trump hadda waa 79 jir, bishii hore 14keedii ayuu 79 jir noqday. Trump nafsad ahaantiisa waxa uu dhahayay Biden isagu wadanka ma uusan hogaaminayn, dad kale ayaa hogaaminaya. xitaa marka uu wax saxiixayo qalin European oo isagu is saxiixayo ayuu wax ku saxiixaa. sidaa darteed waxa uu leeyahay xitaa in baaritaan lagu sameeyo in Biden isagu wadanka uu maamulayay iyo inay dad kale maamulayeen. marka hadda isaga ayay haysataa oo waxa la leeyahay bararkaasi waxyaabaha keenaya gaar ahaan in dhiig uusan lugaha u gudbaynin, isla markaana arrintaasi ay sababayso bararkaasi. waxaana dhaqaatiirta ku takhasustay ay leeyihiin waa cudur iska caadi ah oo dadka markay da'doodu 70 gaarto iyo wixii ka weyn ku dhaca, laakiin khatar ma lahan. bararkana waxa keenaya in dhiigga uusan u kala gudbaynin qaar ka mid ah xubnaha bini'aadamka. marka sidaasi ayaa afhayeenka aqalka cad ay tiri waatan iyada oo ka hadlaysay shirkii jaraa'id ee maalinlaha ee maanta aqalka cad ay ku qabatay, warbaahintana la wadaagaysay waraaqda dhakhtarka madaxweynuhu uu soo qoray, iyadoo weliba warbaahinta la wadaagaysay waxay tiri. I know that many in the media have been speculating about bruising on the president's hand and also swelling in the president's legs. So in the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House medical unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers. All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed normal cardiac structure and function. No signs of heart failure, renal impairment, or systemic illness were identified. Additionally, recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen.
This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy. And the president remains in excellent health, which I think all of you witness on a daily basis here. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta waxyaabaha kale ee soo kordha halkan ayaa idinku soo gudbin doonaa stay tuned waana mahadsantihiin